استاذ aad ma santahay waan salaamaya dhamaan tiimka SFC macallimiinta saaxiibada ardayda iyo dhamaan tiimka halkan ka arkay quruxda waxaan leeyahay aad baan idin salaamayaa madax baatiin insha Allah inta markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan sii galo topicayga iyo mowduuca rabaa inaan ka hadlo bilowga AI-ga iyo xiriirka ka dhexeeya kriptada inaan rabaa inaan isdul istaago inagoo qodob u dul istaagi doono waxaan ka soo qaadanaynaa 4 qodob oo muhiim ah afartaas oo mid walba geeskiisa aan ugu dul istaagi doono insha Allah qodobka ugu horeeyo waa bilowga AI-ga oo macnaha AI-ga xilligu bilowday inagoo dul istaagi doono qodobka labaad oo sida AI-da iyo kriptadu iskugu xidhmaan qodobka saddexaad oo mustaqbalka AI-ga ay saameynta ku yeelan karto kriptada oo haddii mustaqbalka insha Allah waxa laga rajayn karaa in AI-ga iyo kriptadu ay yeelan karaan mataqaanaa xiriiro badan si la mid ah qodobka afraad oo isbedelada AI-ga ku iman kara mustaqbalka afarta qodob baan dul istaagaynaa qodobka koowaad waa bilowga AI-ga bilowga AI-ga inagoo dul istaagayno 1950 meeyadii waxaa bilaabatay fikradda ah mashiin ku fikira sida bini'aadanka in la waxeeyo oo macnaha la tijaab gareeyo marka developer la dhihi jiray Alan Turing ayaa wuxuu in badan isku dayay inuu mashiinkaas sameeyo ugu dambeyntii aduu 1950 ayuu ku guuleystay Alan Turing kaasoo mashiinka ugu magac daray magaciisa ama Turing si la mid ah 1960 ilaa 1980 waxaa soo baxay barnaamijyo yar oo xisaabeed kuwaasoo xalinaya chess AI-ga macnaha in 1960 iyo 1980 wixii u dhaxeeyay waxaa soo baxay barnaamijyo yar kuwaasoo develop gareynaya AI-gu in lagu xisaabeed gareeyo chess AI-ga 1997 IBM Deep Blue ayaa ku guuleystay Kasparov Champion Chess oo marka ka dambeyso waxaad arkaysaa in AI-gu uu dunidu la safalgalayo noqonayana caado ama dabeecado caadi oo bini'aadanka la falgalayo waxaynu usoo gudbaynaa 2010 waxaa yimaaday isbedelkii dunida iyo dhaqaalihii inkaynu ogeyn waa kii 2008 dunidu dhaqaalihii isbedelay xaalado badan ku yimaadeen waxaana xoog yeeshay mashiinka la yidhaahdo machine learning iyo deep learning oo ay la falgaleen ama badanaa ay isticmaali jireen platformyada sida Google, Facebook, Amazon ayaa bilaabay inay isticmaalaan mashiinkaas kuwaas oo ay ku adeeganayaan wadanahooda ku fushanayaan si la mid ah waxaynu soo dul istaagaynaa 2020 inagoo burburkii dhaqaale ee dunida ka dhacay xilligii coronavirus kadib waxaa yimaaday aalad la yiraahdo ChatGPT taasoo la falgelisay isbedelka dunida iyo socodka AI-ga waxaan arkaynaa in ChatGPT Midjourney iyo Coins ay noqdeen caalami kuwaas oo dunida mar walba indhaha lagu hayo dadkan ay ka sameynayaan dhaqaale waali ah halka waxaan kaga soo gudbin qodobkii bilowga AI-ga waxaynu u imaanaynaa si la mid ah qodobka xiriirka AI-ga iyo kriptada ka dhexeeya AI-ga iyo blockchain waxay isku xidhmeen dhowr meelood bay iskaga xidhmayaan trading bots baa kamid ah in lagu tiragereeyo iBotska kuwaas oo kaa siinaya ama ku siinaya fursadaha trade ku qaadato adoo kriptada dhex jooga oo scalpel aad ku samayso ama RTB signalskan dhammaan wuu ka caawinayaa si la mid ah security AI-gu waxay ogaan kartaa ama ay ku sheegi karaan haddii aad ku xidhato AI-gaga inuu jiro hackers badan kuwaasoo isku dayaya inay jabsadaan platformyada ama exchange-yada ama waaladyada kuwaas mar walba ka caawinaya AI-gu inuu wax walba oo mataqaana u baahan tahay uu ka caawiyo si la mid ah waxaynu dul istaagaynaa smart contractiga mustaqbalka waxaa jiri doona contract caqli leh kaasoo isku dara AI-ga iyo blockchain-ka si la mid ah decentralized AI-gu waxaa la sameeyaa projectyada sida Petasur Tau decentralized AI network singles network T iyo suuqa AI service oo blockchain ku dhisan Fed agents kaas oo crypto isticmaalaya waxaynu imaanay qodobka saddexaad oo mustaqbalka AI-ga si la mid ah sidaad wada ogtihiin waxaynu soo marnay 2 marxaladood oo kala ah bilow AI-ga iyo wax laga filan karo si la mid ah mustaqbalka AI-ga aan dul istaagaynaa inagoo tartiib u falaqayn doono insha Allah crypto iyo AI assistance qof walba wuxuu heli doonaa AI assistance maalgashi ka caawinayo singles iyo risk management iyo analyzing technical analysis AI uu ka caawiyo iyo mustaqbalka insha Allah la rajayn doonaa oo la tokens garan doonaa of AI modelska AI software modelska oo la tokens garan doonaa dadkuna waxay ku maalgashan doonaan ama ku maalgashan karaan sida coin-ka camal oo kale like BTC Ethereum Solana si loo maalgasho hadda waxa la sameyn doonaa AI tokenization ama haddaba jiraba kuwaasoo loo maalgashaday sidaas oo kaleeto MetaSafe AI blockchain wuxuu isku dari doonaa dunida digitalka avers aqli leh iyo economic crypto ku shaqeynaya adoption balaaran baa ka yimaanaya AI markaad u fiiristo wixii ka bilowday 2024 ilaa 2025 hadda ku jirno wuxuu dunidu ay la qabsanaysaa AI-ga taasoo isticmaalayaan howlo iyo adeegyo badan kuwaasoo developerska lagu sameynayo
waxaynu aragnaa in 2026 wixii ka bilowday ilaa 2030 AI uu noqon doono aaladda ama teknolojiyadda ugu badan ee dunida la isticmaali doono hadday noqoto trading, economic service, platformyada sida Facebook, platformyo badan oo dhaqaalaha laga sameeyo inuu noqon doono AI majalada keliya ee dunida ka caawin doonta ama dadka developerska ka caawin doona inay mashruucyo iyo howlahooda ku fishadaan. waxaynu dul istaagaynaa qodobka afraad ee AI macnaha isbedelka AI ee mustaqbalka laga filan karo. AI-gu waxa uu isbedeli doonaa shaqooyin badan sida accountant, design ama web design, writing iyo trading. inuu AI-gu bedelo oo uu la wareegaa la rajeynayaa, taasoo dadka u fududaynaysa in ayagu howlahooda ama danahooda khaaska haysto oo AI-gu u sameeyo. crypto markets markii la fiiriyo AI wuxuu keeni doonaa suuq crypto mid aad u caqli badan, taasoo automation less than human error-ka macnaha laga taxadirayo human error-ka, waayo marar badan bini'aadamku waxaa laga yaabaa in howlo badan ka mashquulo. sharciga xakamaynta eedow waxaan ku yar jiraa ay sharciga xakamaynta dowladuhu waxay samayn doonaan sharciyo adag oo la xiriira xogta AI iyo cryptada. macnaha inay dowladuhu sharciyeeyaan in AI iyo cryptadu ay noqdaan waxa kaliya ama la isku raacsan yahay fikradaha kaliya la isku raacsan yahay ee dunida horumarka mustaqbalka u horseedi doona. fursadaha maalgashiga AI waxay noqon doonaa mid trend cusub oo aad loo xiiseeyo, qof walbana uu ku galo wuxuu faa'iidi doonaa faa'iido aan caadi ahayn. marka la soo koobo, AI-gu bilowgiis wuxuu ahaa fikrad saynis, maantana waxa uu noqday xog dhaqaale iyo tiknoolajiyad. xiriirka AI iyo cryptodana wuxuu hadda ka muuqdaa trading iyo security, smart contract, decentralized AI iyo network. mustaqbalka waxaa la keeni doonaa isbedello waaweyn oo ka dhigi kara crypto mid caqli badan leh oo fursad u siinaysa dadka maalgashadayaasha inay si aan caadi ahayn u maalgashaan ayagoo mar walba faa'iido iyo khasaaro ka filan kara. laakiin AI-gu wuxuu isku dayaa inuu kaa caawiyo mar walba dhanka faa'iidada. isbedelada AI waxay samayn doonaan ama ay la wareegi doonaan dhaqaalaha, shaqooyinka iyo sharciyada. hadda waxaan kasoo hadalnay AI-ga iyo bilowgiisa iyo cryptadii. hadda waxaynu sameynaa marka AI-gii oo la falgelaya cryptadii, ama AI-gii oo crypto ku dhex jira ama loo token garaynayo oo like mataqaanaaye cryptadii ah. waxaanu soo qaadaynaa coinka la yidhahdo tau. coinka tau waa coinkii ugu horreeyay AI ee la dhiso, waa coinkii ugu horreeyay AI ee lagu soo laanjigaray ama blockchain-ka ugu horreeyay ee crypto ee AI. Petasor baa loo yaqaanaa, waa mashruuc blockchain oo ujeedadiisu tahay in la abuuro suuq furan, taasoo sirdoonka macmilka AI-gu dadka ama mashiinada awoodda leh AI-gu waxay ku tartami doonaan inay bixiyaan adeegyo AI, waxaana la siinayaa abaalmarino tau tokenska ah. tau token-ka asalkiisa waa Petasor, waxaana loo isticmaalaa in lagu dhiirigeliyo ka qaybgalayaasha miners Philadelphia, iyo sidoo kale waxaa loo isticmaali doonaa adeegyada AI iyo khidmada gudbinta. waxaynu ku dhex jirnaa weli tawe wuxuu leeyahay supply go-an oo ah 21 milyan, halkaas bitcoin yuu ka shabahaa oo 21 milyan weeyaan maximum supply-giisa. mashruucan wuxuu mar go'aansaday inuu ka howlgalo chainkiisa gaarka ah halka uu ahaan lahaa blockchain protocol-ka ah. marxaladaha muhiimka ee tau aasaaska iyo fikradda tau ayaa ka dambeeyey cidii aasaastay. Petasor waxaa aasaastay Jacob Project Service iyo Alan Shabana, iyadoo la doonayay in la sameeyo nidaam blockchain ku salaysan sirdoonka macmilka ah. Semester Kostag iyo mashruucan wuxuu isticmaalay nooc loo yiraahdo Kosagenga oo ah mashruuc substore ah, laakiin waxaa la hakiyey si loo saxo khaladaadka qaar. Fork iyo Nemain oo ah cusub oo Nakamoto China ah. bishii November 2021 mashruucan wuxuu saameyn forks magaca Nakamoto iyo dhammaan tawyadii hore, kaasoo Kosangi qaar loo wareejiyey tau. bilowgii ganacsiga iyo qiimihii hore, wuxuu markii ugu horreysay ogolaaday tau qiimo ahaan 0.12 oo markii uu bilaamayay qiyaas ahaantii in suuqan uu kusoo galay, iyadoo suuqan u bilaabmay horaantii 2023. kororka qiimaha sare, tau ayaa mar qaatay koror weyn isagoo gaaray qiimo sare oo all time high ah, taasna wuxuu gaaray 757. horumarinta Samsung Mining iyo Petasor waxay isticmaalayaan fikradaha sababta qaybaha kala duwan ee shabakadaha AI, halkaas oo ay miners iyo average ku shaqeynayaan. mining tau wuxuuna ku xiran yahay in la diiwaan geliyo USDT iyo USDT substance, kaasoo baahan kharash tau ah si aad u isticmaasho. isbedelada waxaa adeegsada hab adeegyo decentralized staking in lagu sameeyo oo loo adeegsado filters Bitcase iyo with tau oo waxa loo sameeyaa tau bridge iyo with tau token si loo xalliyo tau shabakada to isticmaalayaasha Ethereum, Solana oo like blockchain-nada Ethereum iyo Solana ula tartamaya marka loo fiiriyo blockchain-kiisa. xisayaal fara badan iyo maalgeliyayaal fara badan sida institutionada, hay'adaha, developers, miners-ka waxay aad u xiiseynayaan inay tau maal gashadaan ayagoo u arko inuu yahay next Bitcoin marka loo fiiriyo mustaqbalka dhow.
waan ka baxay waan ku salaamaya waan salaamaya dhammaantiin guys SFC guuleysto